الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كنتن يا سجالات هي كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله كالماء للزرع وابن القيم معلومة أما حكمه عوان لوغا دغاي سيدا بيوه أي أبحيان دوغة أو كله maxaa laga wadaa maxaa lamida shayga ina dawaama dikr wuxuuhi ibnuqayim raximahullah dikriga ilaahay oo la daa'imo sababun lidawaami almaxaba wuxuu sabab u yahay maxabada iyo jacaylka rabbi buu u yahay fadikru lilqalbi kalmaa'i lizarci dikriga ilaahay oo la daa'imo qalbiga wuxuu u yahay sida biyuhu ay u yihiin raashinka iyo beerta inay soo baxdo beerta iyo dooga siday biyaha ugu baxaan oo kale buu qalbigani dikrigu u yahay bal kalmaa'i lisamak wuxuu yihi iskaba dhaafa wuxuu la mid yahay sida malayga uu u yahay biyaha iyo malaygu say isu laasimaan laa xayaata lahu ilaa bih ma suuragal baa inuu malaygu noolaado asamak malaygu ama kalluunka dadka qaarna waxay dhahaan kalluun dadna malay bay dhahaan marka kalluunkaas iyo malaygaasi ma noolaan karaan biyo la-aan waa su-aal maya kalluunku meel aan biyo aan kuma noolaado qalbiguna dikri la-aan ma noolaan karo sheekhu macluumadaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisii la odhan jiray jalaa-ul afhaam في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام oo uga hadlayay 40 faa'iido oo salaada rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ku saabsan buu uga hadlay marka sidaas way waxa la dikriga ilaahay marka dikrigu waa anwaac qaybo kala duwan way dikrigu anwaac way dikriga asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay iyo tilmaamihiisa iyo ammaanta ilaahay oo la amaano tasbiixdii iyo taxmiidii iyo takbiirtii iyo dikrigii axkaamtiisa dikrigii awaamirta ilaahay oo ina amray iyo wuxuu naga reebayay rabbi wuxuu leeyahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma yacni qofka ka jeedsada dikriga ilaahay qofka qur-aanka ka jeedsada dikriga ka jeedsada wanaagga ka jeedsada wuxuu leeyahay nolol ciriiri ah baa la gelinayaa maalinta qiyaamadana isagoo indhala ayaa la keeni doonaa haddaba qalbigu wuxuu ku itmi'naan ku helaa alqalbu yatma'inu bidikr sideedaba qalbigu wuxuu ku degaa dikriga ilaahay aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub dikriga ilaahay buu qalbigu ku degaa uu ku nastaa haddaba qalbigu inuu dego uu nasto waa inaga aragnay qalaylkiisana maxaa keenuu qalbigu uu ku qalalaa dawaa alqaswa waa haddana macluumo kale xigmo kaloo ibnulqayim uu sheegay oo ciwaan looga dhigay qaswada waa qalalaanta qalbiga maxaa dawo fi lqalbi qaswa buu yihi ibnuqayim laa yudiibuhaa ilaa dikru llahi tacaala qalbiga waxaa jira qaswo iyo qalalaan baa ku jirta aynan dhalaalinaynin ilaa dikriga ilaahay unba dhalaalinaya haddaba fayanbagii lilcabdi addoonka waxaa u habboon an yudaawiya qaswata qalbihi bidikri illaah addoonka waxaa u habboon inuu ku daaweeyo qalbi qalaylka haysta dikriga ilaahay inuu ku daaweeyo ayaa u habboon waxuu soo guuriyey waxaa la yidhahday maxamed ibnu zayd baa wuxuu ihi qof baa u yimid xasan albasri raximahullah ninkaa taabiciga ah jaliilkaa wuxuu ku uhi yaa abaa saciid ashkuu ilayka qaswata qalbi waxaan kuu sheeganayaa qalbigayga inuu qalalan yahay maxaan ku daweeyaa qalbi qalayl diintu iguma duxdo diintu qoyaan qalbi iima samayso marka maxaan igu daweeyaa oon dawo ahaan igu sheegi wuxuu ku yidhi adibhu bidikri waxaad ku dhalaalisaa qalbigaagaa qalalan ku qoo dikriga ilaahay maxaa jira kulamaa ishtadad bihi lgafla mar kasta oo qalbiga algafla iyo halmaanku ku bato
ishtadad bihi lqaswa, waxaa kusii badata qaswada iyo qalalaanta iyadoon kusii badata. fa idaa dakara allaha tacaala, markuu qofku ilaahay uu xuso haddaba waxaa dhalaalaysaa alqaswa, qalaylkii qalbigaa dhalaalaya. sida uu u dhalaalo alrasaasu fi nnaar, dabka markii nuxaasta iyo waxyaabaha la geliyo biraha qaarkood dabka siday ugu dhalaalaan ayay saasoo kale qalbigiina u dhalaalaya dikriga ilaahay. qalbi wuxuu yihi laguma dhalaaliyo ibnuqayim wax shay u dhalaalaya ma jiro ilaa bimithli dikrillah, dikriga ilaahay wax la mid ah. oo haddii dikriga ilaahay la badsado qalbi siduu u qoyo wax u qoyn karaa oo kale ma jiro. marka dikriga ilaahay waa arrin weyn oo rasuulku sal lla ly slm markuu lahaa xitaa alaa adullukum bikhayri acmaalikum wa askaaha cinda maliikikum wa afdaliha lidarajaatikum, yani sida wakhayrin lakum min icطaa'i dahabi walfida wakhayrin lakum min an talqaw caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribuu acnaaqakum. yani xadiidkii dheeraa uu sheegayay war waxa ugu fiican wax walba ma idiin sheega, waxa ugu sarreeya ma idiin sheega, wax ka fiican inaad wax bixisaan, dahab iyo dinaar iyo doolarka maanta yaallo oo kale hadduu jiri lahaa la bixiyo, wax ka fiican ma idiin sheega, wax xitaa inaad cadowgiin iyo gaalo la kulantaan oo qoorta laydinka jiro idina qoorta ka jirtaan jihaad fii sabiilillah, wax ka fiican ma idiin sheega. say dhagaha u taagayeen wuxuu ihi waa dikrullah, waa dikriga ilaahay. marka dikriga ilaahay waa arrin weyn weeye. ilaahayna subxaanahu watacaala qofka markii uu jeclaado wuxuu noqonayaa maqalkiisa uu wax ku maqlo iyo aragga uu wax ku arko iyo socodka uu ku socon lugihiisa iyo gacmuhu wax ku taaban lahaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa maxabadiisa inuu nagu quweeyo una siiyo, dikrigiisana inuuna karsiiyo. jazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.